da'daydu aad ayay u weynaatay waxayna gaartay 31 sano. Mana jirin cid i soo doonatay ama i guursatay intaba. Nasiibkaygii weli muusan imaanin. Waxaa dhacday in dad badan ay wacayaan qadarka Rabbi ay dhahaan wax guursanaya ma leh, waa guumays iyo hadallo kale. Haddii ay ahaan lahaayeen qaraabo iyo asxaab intaba. Waxaa dhacday xitaa inaan shaqo waayay, waayo muddo 9 sano ah ka hor ayaan jaamacad dhameeyay. Mana helin weli wax shaqo ah. Noloshii oo idil waxay igu noqotay mid culus. Laakiin maalintii aan bartay dikrigan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa farajka sida roobka oo kale korkayga ugu soo shubay. Waxaan helay guur markii aan dikrigan akhrinayay 3 bilood kaliya. Alxamdulillaah, shaqo waan helay. Ilaahayna wuxuu i siiyey awlaad markii aan guursadaba hore aan uurka yeeshtay. Alxamdulillaah, 3 bil gudahood ayay ku dhaceen waxaasoo idil. waxaana akhriyay halkan digri oo kaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena, soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiis badan. waxaan ka hadli doonaa maanta qisas ku saabsan istighfaarta iyo Allah subxaanahu wa tacaala siduu noloshaada u bedeli karo haddii aad niyad la imaato. innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in ma nawaa. Allah subxaanahu wa tacaala xadiithul qudsi wuxuu ku leeyahay ana cinda dhanni cabdii bi, aniga addoonkayga wuxuu iga malaysto agteeda ayaan ahay. hadad Allah subxaanahu wa tacaala ka malaysato khayr iyo wanaag, Ilaah waa ku siinayaa. haddii aad shar iyo balaayo malaysatana hadda adiga naftaada ayuunbaad eedeysaa oo cid kale aad eedeysa ma jirto. soo dhawaada walaalayaal, qisadeena maanta waxaa inooga sheekeynaya qisada ugu horeysa wiilkani wuxuu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og hadalkayga in hal kelmad oo been ah aysan ku jirin. wuxuu yiri waxaan akhrin jiray istighfaarta, waxaan u duceyn jiray waalidkay, mu'minaadka, mu'miniinta, muslimiinta, muslimaadka, inta nool iyo inta dhimatay. waxaan akhrin jiray ayuu yiri saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa ay hurdo ila tagtay. ayaan sidaas samayn jiray, aad ayaan u daa'imi jiray. wuxuu yiri faa'iidada koowaad aan ku helay waxay ahayd naftayda raaxa inay dareentay oo culaysyadii hayay oo Allah subxaanahu wa tacaala ii fududeeyay. arrin muddo igu adkeedna Allah subxaanahu wa tacaala ii sakhiray iina fududeeyay. albaabaha khayrka ayuu Allah subxaanahu wa tacaala iigu furay, baraka iyo wax walba ayaan helay. qisadeena xigta wiil ayaa inooga sheekeynaya. wiilkan wuxuu yiri waxaa igu dhacay xanuunka xasaasiyadda oo aad iyo aad u daran ayuu yiri. 12 isbitaal ayaan tagay, 17 sano ayuu i hayay. xasaasiyad aad iyo aad u xun ayaan lahaa ayuu yiri. waxayna ii sheegeen dhakhaatiirta in aan wax daawo ah lahayn. weliba dhakhtar dalka dibadiisa ayaan tagay. markii dambe wuxuu yiri waxaan bilaabay inaan isku daaweeyo istighfaarta iyo suuratul baqara. Allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku dhaartay, Ilaahay waa i caafi oo xasaasiyadii oo idil waan ka fiicnaaday ayuu yiri wiilkan. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhan waxay tiri Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa marnaba ka quusanin. waxaan akhriyay tiri istighfaarta gaar ahaan salaada subax kadib maalin walba waxaan akhrin jiray 1 mar. Ilaahay ayaan ku dhaartay, Ilaahay wuxuu ii furay albaabada naxariista leh, noloshayda ayuu bedelay, dhinaca wanaagsan ayay u bedelmatay ayay tiri. alxamdulillaah, waxaan kaloo arkay ayay tiri in duco walba oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku duceysto uu iga ajiibayo, arrimahaygiina uu ii fududeeyay ina barakeeyay. qisadeena xigta waxay inooga sheekeynaysa gabadhan waxay leedahay da'da 31 sano ayaan gaaray. ma jirin cid i soo doonatay, ma jirin cid i guursatay. waxaa dhacday qaraabadii, dariskii, familkii, qof walba inuu leeyahay maad guursatid, halka qaar kalena ay leeyihiin waxaad noqotay guumays, waxaad noqotay qof weyn. saacadan kadib qofku soo doonanaya ma leh iyo hadallo kale. qadarta Rabbi iyo wuxuu Ilaahay gacantiisa ku jiro in qof bini'aadan lagu dhibaateeyo ama lagu dulmiyana ma aha wax wanaagsan. waxay tiri markii dambe waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta, astaghfirullah wa atuubu ilayh. inaan ku celceliyo waxaan akhrin jiray ducadan Allahumma ighfir lii warhamni wa'aafini warzuqni wahdini. waxaan kaloo akhrin jiray ayay tiri suuratul baqara. waxaan soo kici jiray habeenkii xilliga salaatul leylka ayaan soo kici jiray. waxaan akhrin jiray astaghfirullah wa atuubu ilayh. waxaan kaloo ku duceysan jiray ducadan Allahumma ighfir lii warhamni wa'aafini warzuqni wahdini iyo suuratul baqara ayaan akhrin jiray. waxaan akhrin jiray habeenkii xilliga salaatul leylka. alxamdulillaah, 3 bil gudahood markii aan intaas waday waa laygu soo doontay oo waa laygu soo guursaday. waxaanay guursaday nin aad iyo aad u wanaagsan. waxaa kaloo dhacday guurkeedii muddo kooban kadibba
inaan helay shaqo. Shaqadaasi waxaan raadinayay muddo 9 sano ah. 9 sano oo aan jaamacadda ka baxay waxaan ahaa shaqo la'aan. 3 bil gudahood waxaan ku helay guur, waxaan ku helay qolo shaqo. Waxay kaloo tiri alxamdulillah markii la guursaday muddo kooban kadibna Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu i siiyey uur oo awlaad ayaan dhalay. Intaasoo faa'iido ayaan ku helay ayay tiri 3 bil gudahood. Qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaysa gabar waxay leedahay Ilaahay weligaa ku kalsoonow. Maxaan ku arkay istighfaarta? Waxay tiri istighfaarta waxaan ku arkay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrin walba oo ugu cusleed uu igu fududeeyay. Arrin walba aan islahaa suurtagal ma aha markii aan istighfaarsado in Allah subxaanahu wa tacaala ii fududeeyay. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhani waxay leedahay alxamdulillah Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii ku kalsoonaado oo aamino marnaba ma dayacayo. Waxay tiri gabar aan saaxiibanahay ayaa ii sheegtay istighfaarta iyo faa'iidada ay leedahay iyo inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu rumeeyay riyooyin ay lahayd. Waxay tiri waxaan akhriyay maalin walba 1,000 mar. Albaab badan oo iga xirnaa ayuu Allah subxaanahu wa tacaala igu furfuray. nolosheediina waxay ii heshay barako iyo farxad. alxamdulillah maalinkii aan ogaaday faa'iidada ay leedahay ilaa iyo maanta kama tagin istighfaarta waxaan ka dhigtay nolol maalmeedkayga. qisadeena xigta maanta waxay nooga sheekeynay wiilkan wuxuu leeyahay waxaan laazimay istighfaarta ilaa uu Ilaahay iigu rumeeyay riyo walba oo lahaa. murug darteed waan la oon jiray waxaan ahaa qof murugaysan. murugada kama zuuli jirin indhahayga laakiin markii dambe waxaan ahaa qof farxad badan. ilaa waalidkay ay ila yaabeen waxa sidan ii bedelay. wuxuu yiri sirta ii bedeshay waa istighfaarta. murug kasta iyo kurbo kasta oo ii haysay iyo indhahayga ilin kasta oo ka socotayna Allah subxaanahu wa tacaala ayaa farxad u bedelay oo noloshaydii dhinaca wanaagsaneed ayay u bedelmatay. qisadeena xigta maanta wiil ayaa nooga sheekeynay. wiilkan wuxuu leeyahay waxaan laazimay istighfaarta sanado badan oo noloshayda ka mid ah. arrin aan rajeynayay iyo Allah subxaanahu wa tacaala igu siiyay istighfaarta. markii aan istighfaarta akhrisanayay hadafkaygu kaliya ma ahayn in Ilaahay arrintan i siiyo laakiin waxay ahayd in Ilaahay ii dambi dhaafo ayaan aad u jeclaayo yiri. waan laazimay istighfaarta alxamdulillah muddo kooban gudahoodna Ilaahay subxaanahu wa tacaala sanaday wixii aan sugay waa uu i siiyay. alxamdulillah sidaas si lamid ahna Allah waxaan ka rajeynayaa inuu ii dambi dhaafo. haddaba istighfaarta waa wax fudud aad ku helaysa dambi dhaafka iyo raali ahaanshaha Allah subxaanahu wa tacaala adduunyadaada iyo aakhiradaadana aad ku faa'iidi doonto. qisadeena xigta waxay noo sheekeynaysaa gabadhan waxay leedahay 3 sano wixii aan raadinayay. markii aan istighfaarta bilaabay 13 maalin oo kaliya ayaan ku helay. bal ka waran arrin 3 sano kugu cusleed 13 maalin kaliya markaad ku hesho. waxay tiri isma lahayn degdegan iyo Allah subxaanahu wa tacaala wax walba kugu ajiibaya laakiin waxaan wax walba helay oo 3 maalin gudahood ku helay arrintii 3 sano igu cusleed. markii aan aqriyo istighfaarta waxaan u akhrin jiray astaghfirullah wa atuubu ilayh. maalin maalmaha ka mid ah anigoo muxaadaro dhageysanaya ayaan maqlayay sheekh ka hadlaya faa'iidada istighfaartaas. ayaan u go'aansaday inaan bilaabo oon laazimo. alxamdulillah waan ku faa'iiday 3 sano arrin igu cuslayd 13 maalin oo kaliya ayuu Allah subxaanahu wa tacaala igu fududeeyay arrinteeda. qof walba Ilaahay taa saarto qof walba istighfaar la imaado arrimihiisa adduun iyo kuwa aakhiraba Allah subxaanahu wa tacaala waa u fududeyn doonaa. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel qisaskeena ku saabsan maanta istighfaarta halka ayay nooga yihiin. haddii meeshna soo gaartay muuqaalka like saar si walaalo badan u gaaraan ogana faa'iideystaan. haddaad horey noola joogtad mahadsan tahay qaybta hoose commentiga ku soo qorno saliga xabibkeena Maxamed. wassalaamu calaykum.